السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا عشر كله وحيسله. عشرة أرديدا بدن كود سوي دينايو. أرديدا حكاوت سنة عشرة أونلاين كإنه كسر بيران مساقات سكول كإنه كسر بيران. سي عشرة دمسترن أو قطن لسه الجملوين كان وحير عاونايان. لكن كورسات دمسترن وواحد كابه تريكرو إن لقدا فهمته. إلى الجملوين كان نحو الآن تودا هادو كوات كاني laga yaabo inaad xifdiso aad iska isticmaasho adigoon sharciyan min jumlooyinka mas'aladan isku dhigan meel ay ka yimaadeen aadan aqoonin mar walba waxa fiican waxa ku hadlayso naxwo ahaantooda inaad kala dhigi karto badanaan wax xoog ah saarna qaybta iskuulka masqabta online ka waa taas naxwo hadii aad iska dhisto jumlooyinkan qof inuu ku soo alifo uma baahanaysid haddana idin sheega hadii jumlo naxwo ahaanteeda si la isugu dhijinayo waxaan aa ogaato hadii si ay tahay hadii na ay tahay waxa meel kale iimaan daafaanto weena fuuda naxwooyinka ugu fudud luqadaha la barto Swahiliga waa naxwihiisa luqad ka naxwo fudud ma jirto so waxa u maleena in la fahmay marka jumlooyinkan furan ardayda socodsadeen asla dul marno tan kala taageera dhahnay la soco waxa rabnaa in 10,000 hore u gaarno 3,000 oo ka dhiman maxaa la jiray channelka 10,000 ugu dhiman ina buuxino fadlan ardayda kala gaarsi qaybta Facebook ha ahaado any platform aad isticmaal WhatsApp ka ha ahaado Facebook ha ahaado Instagram ha ahaado any platform that you use make sure you share our channel so let's go through asla firino wacha tupitie haya sentensi mbalimbali ambayo wanafunzi wengi waliomba tuyapitie. Sitawahi kusamehe jumlada koowaad sitawahi kusamehe sitawahi weligay kusamehe kuma afina weligay kuma afin doono wa sitawahi kusamehe weligay kuma afin doono badilisha badal hiyo tabia tarbiyadaas badilisha hiyo tabia badilisha hiyo tabia badal tarbiyadaas mise dhaqankaas iska badal waa wacha ujinga wacha ujinga wacha ujinga joji doqonnimada la soco hadihin wacha mjinga hadihin wacha mjinga waa doqonka dhaafwa mjinga macda waxay u taagan tahay qof mtu qof maada way u taagan tahay mjinga maadaas qof ay u taagan tahay marka hadda waxay noqonaysaa doqonka dhaafwa so udan waa doqonnimo ujinga doqonnimo so wacha ujinga joji doqonnimada jumlada afaraad wacha madharau wacha madharau wacha madharau joji yasmada yasitan madharau wacha madharau joji yasmada la soco madharau waa magac ficilka waxa waaye dharau hadii aad rabto inaad ka hormariso nafsi waqti iyo ficilka dharau aad rabto inaad isku dhijiso hebel ana dharau qof kale hebel salahan halima ana dharau aisha halima ana dharau aisha halima waxay yeesaysaa aisha so ficilka waa dharau madharau nafsi iyo waqti kama hormarin kartid usirudie tena jumlada shanaad usirudie ha ku soo celinin tena mar kale laba macne lahan kartaa meeshaas usirudie ha u soo laaban way noqon kartaa ha ku soo celinna way noqon kartaa usirudie tena badana waxa loo isticmaalaa hadalkaas ku soo celino kale mise waxaas asameysay ficilkaas asameysay ha ku soo celin loo isticmaala usirudie tena hanjabaad amal wa jumlada lixaad siwezi fanya kazi naye siwezi fanya kazi naye siwezi fanya kazi naye lama shaqayn karo waa siwezi ma awoodo fanya kazi naye inaan asaga la shaqeeyo asaga lama shaqayn karo waa Soomaali ahaanteeda asaga lama shaqayn karo naye waxa laga soo gaabiyay nayeye haya sipendi marashi jumlada toddobaad sipendi majli marashi barfun sipendi majli marashi barfun sipendi marashi jumlada جملة جديدة
taas jumlada toddobaad. Jumlada sideed, Halima amejifungua. Halima amejifungua. meeshaan rabna inaan wax yar sharaxno. Halima amejifungua macnaheedu waxaa waaye Halima way dhashay. Halima way dhashay. waxaa la isticmaalaa dhalitaanka ficilka dhalitaanka saxda waxaa waaye za dhalida. za waxaa dhigi kartaa Halima ameza. Halima way dhashay. laakiin waa laga naxariis badan yahay, waa laga fiican yahay. ficilka fungua waa furid. hadda korna waxaa dhahnay ereygan ji qofka iska hadlaaya ee ku laabanay. macnaha qofkan oo laga hadlaa hadee tahay asaga ayada laga hadlaayo asaga laga hadlaayo asaga qof isku sameeyay. hadii jumlada hadda anajifungua la macneeyo ama amajifungua la macneeyo waxay noqonaysaa hebel uu isfuray noqonay. so macnaheedaas lama jeedo. waxaa loo jeedaa hebel mis heblaayo way dhashay. amajifungua way dhashay. ameza laga soo gaabiyay. marka xogaa hadal la qadiyay hadal sarbeeb camal waa. jumlada sagaalaad, umepotea wapi. umepotea wapi, xagee ku luntay. maalmahan xagee ka baxday camal waaye. umepotea wapi. umepotea wapi, xagee ku luntay, xagee ka baxday camal waa. maalmahan xagee ku luntay. umepotea ficilka potea waa lumitaan waay. peleka huko. peleka huko. peleka gay huko xagga. badanaa waxaa dhaanay waxa ishaar ahaanta u isticmaalayno oo u qarinayno magaca waxaan gay la dhahayo waxaa waaye qofkan shaygan inaadan aqoonina laga yaaba oo peleka dhehayso. iyo huko waxa uu dhahayno meeshuu geenayo mise laga rabo inuu geeyo waa jiko kale laga yaabo inaadan aqoonin ereyga jiko macnihiisa mise fasar higiya dhihi rabtaa magaciisa ku gambiyay mise waa hilmaantay. taas darteed u leedahay peleka huko. qofku uu ku fahmaa peleka huko gay xagga. so wixii fartaaba ku ishaartaybo. marka waxaan u maleynaa cashirka in laga faa'iidaystay. hala isaga kusoo gabagabeynayna yaa la hilmaamin cashirada inay socdaan qaybta online-ka mise qaybta iskuulka labadan usoo biri kartaa si jumlooyinkan adiga u alifato. waa inaad koorsada dhammaystiran qaadataa, juhdi ku bixisaa, cashirada qortaa, lagaa saxaa, imtixaan ku gashaa. that's the only way oo kugu fududaanayo Swahiligan. channelka hala taageero wixii aad ka faa'iideysanaysa ka faa'iideyso, ardayda kala gaarsi si ayagana ugu faa'iideystaan. wabillahi tawfiiq.